Waxaa soo dhamaaday toddobaadkii labaad horyaalka kooxaha heerka labaad ee xiriirka kubadda cagta Somaliland garoonka Hargeysa Stadium degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. Shantii maalmood ee lasoo ciyaaray horyaalka heerka labaad waxaa lagu soo dhaliyay 17 gool, iyadoo toddobaadkan uu ka goolal yaraa toddobaadkii koowaad oo lagu soo dhaliyay 27 gool, iyadoo labadii toddobaad ee horyaalkan lagu soo dhaliyay wadar guud 44 gool xilli 33 ciyaartoy dhaliyeen. Kan ugu goolasha badan soo dhaliyay isku dar labadaasi toddobaad 4 gool. Kooxaha wasaaradaha cadaaladda iyo waxbarashadu waxay galeen barbaro 1-1 ah. Kooxaha wasaaradda isgaarsiintuna waxa ay 5-2 uga soo badiyeen kooxda wasaaradda howlaha guud, halka kooxda wasaaradda warfaafintuna waxa ay 1-0 uga soo badisay kooxda wasaaradda beeraha. Kooxda wasaaradda tamartuna waxa ay 4-1 uga soo badisay kooxda ciidanka ilaalada xeebaha, iyadoo kulankii dhex maray kooxaha wasaaradaha qorsheynta iyo gaadiidkuna barbaro 1-1 kusoo idlaaday. Waxaa xusid mudan in toddobaadka labaad macalinkii ugu horreeyay iska casilo shaqadii macalinimo, waana macalin Maxamed Siciid Cige, macalinkii kooxda wasaaradda howlaha guud. Toddobaadkan saddexaad haddii alla yidhaahdo oo maalinta Isniinta bilaabmi doona, maxaad ka filaysaa in lagu dhalin doono? Ma kula tahay inay goolal badnaan doonaan ama ka goolal yaraan doonaan labadii toddobaad ee horyaalka lasoo ciyaaray? Xasan Xuuto, wararka Malcab, magaalada Hargeysa.